qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee beelaha direed kana mid ah salaadiinta dhaqanka ee gobolka Awdal oo maanta ku hadlay gudaha magaalada Boorama waxay tacsi u direen eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen Allaha u naxariistay 4 nin oo dhawaan lagu dilay deegaanka Xajiin ee ka tirsan degmada Awbarre ee dawladda deegaanka Soomaalida dalkaasi Itoobiya waxayna sidoo kale fariimo kala duwan u direen madaxweynaha dawladda deegaanka iyo dawladda federaalka dalkaasi Itoobiya waxayna sheegeen waxaan halkan u soo fadhiisanaynaa ka xunnahay dilka lagu sameeyay dadka cabanaya sida horeba loo sheegay ee ka cabanayay nolosha aasiga ee ka cabanayay biyaha ee ka cabanayay iskuulada ee ka cabanayay wadooyinka in loogu daro haddii ay wax tawdeen in xabad nool xukuumadoodii ugu darto amid subxaanalla weeye annagaa u odayaala annagaa bundhigu ah annagaa u tola sina ku qaadan mayno sina ku aqbali mayno qaabka imka u socoto hadday u socoto sina ku yeeli mayno waxyaab badan oo horeanu tabanayni muuqaal badan baan arkayni nidaamkaaga xukuumadeed baan arkayni haddaa dilna ku dartay dee mooyiisa u suurtagali sharciguna ma dhigayo dad xuquuqdooda doonaya oo xuquuqdoodii u hadlaya oo le wixii aanu xuquuq lahayn aanu ka helno dawladda kilanka in booliskii iyaga ilaalin lahaa ay rasaas ku fulaan oo ay dad ku laayaan aad iyo aad baan ugu xunna arrin la qaadan kara maaha dawladda federaalka ee Itoobiya waxaanu leenahay arrinkaa foosha xun leh dadka ay gacanta ka gardaran dishay waa in la soo farageliyo si degdeg loo soo gaaro waan ka xunnahay dilka foosha xun leh loo geystay ragga halkaa lagu laayay haddii la yidhaahdo federaalku halkaa dawladda kililku ku laysay waan ka xunnahay wax loo dulqaatiyo wax la dugsada midna maaha waxaan leenahay arrintaa wixii hadeerada laga qaban lahaa dawladda federaalku ha ka qabato lilaahi wa inna ilaahi raajicuun waxaan maanta halkan tacsi ka diraynaa dadkii lagu laayay Xajiin weyne ee ay laayay dawladda kilinka shanaad adaysay ayaana halkan tacsi uga diraynaa Allahu naxariistaan leenahay Allahu naxariisto eedii ay ka dhasheen sabiriye iimaan Allah ka siiyo waxaan leenahay raggaasi waxay ku dhinteen xaqii ay ku lahaayeen dawladda kilinka ayay doonayeen waxaan leenahay annaga waxaan qancin karo oo qura dadkii dunuubta galay ee dadka xasuuqay lagu laayay dadkaas oo biyo la'aan ay ku dhacday kililka jaarka la iyagu biyo u doontay lagu laayay biyihii ay doonteen oo qura lagu laayay dadkii laayay oo maxkamad keeno ay oo qura qancin karta waxaan leeyahay mar labaad dawladda federaalka arrinta weyn soo farageliso ciidanka qabiilka ciidankii dhirgiga lamida ee meel walba jooga ee dadka xasuuqayana inaan deegaankayga laga qaado ayaan ku codsanaynaa laytoodeena waa ka xunnahay mana ogolin in dadkayga shacabkayga saa loo laayo ma ogolin waanu ka soo horjeednaa waxa dad baa odhan doona Soomaaliland baa laga hadlay Soomaaliland ragga odayda Soomaaliland ilaa jiga kuwa degan bar odayo u nahay kuwaasaan xukunaa magta isku xidhan waa dad walaalaa waa gada buursi qaar baa odhanay xumaanta wax u dulay ma garanaysaa dir baa wax wada dir waa wax jira waa qoobiyad xoog leh oo jirta waan u hadlaynaa meel kasta uu joogo waxaanu leenahay xaq darrada hala joojiyo dawladda federaalka waxa ka codsanaynaa in ay soo farageliso bil'aadmigaasi lagu dilay waxa naga maqan danaa naga maqan waxaanu xaq u leenahay baa naga maqan cid lagu dilay waxna gaf adduunyada meel walba ku khaldan diinta islaamka ku khaldan diinaha kale dhaqanka bil'aadmiga oo dhan ku khaldan waxaan leenahay dadka Ilaahay u naxariisto laakiin haddii dawladda Itoobiya ay u dhaqaaqday inay dimuqraasi u durugto la wada og yahay madda Itoobiya kilinku leenu raaco weeye oo inuu ka hadhan maaha dimuqraasiyada loo socdo in dadka lala tashado oo la weydiiyo dil wax lagu saxayaa ma jiro